wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu waxay qaranka u xil saaran tahay ilaalinta daryeelka iyo xaqiijinta deegaan badqaba oo suuro gelinaya in lagu noolaado nolol dabiici ah oo xasiloon inagoo ogsoon in wax kasta oo suuro gelinaya nolosha aan soo sheegay in ay lagama maarmaan tahay in lagala soo baxo dhulka hadday tahay cunto biyo macdan batrool iyo hadday tahay deegaan aynu ku noolaanaba haddana inagoo ka faa'iidaysanayna khayraadka ee dhulka inoo geliyey waxaa lagama maarmaan ah inaynu isu miisaano isticmaalka khayraadka aynu dhulka kala soo baxayno iyo badqabka deegaanka aynu ku noolnahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee inteena halkan fadhida aynu inta badan la tacaallo waxaa ugu weyn oo ka mid ah la dagaalanka xaalufka oo ay ka mid tahay dhuxulaysigii sharci darrada ahaa oo beryahan dambe aynugu soo korodhay dhuxulaysi ganacsi loogu talagalay oo xuduudaha waddanka laga saaro degsimooyinka sharci darrada ah ceshiimooyinka sharci darrada ah duurjoogta oo ama la ugaadhsanayo ama laga ganacsanayo sifo sharciga ka baxsan haddaba si aynu dhibaatooyinkan soo sheegay wax uga qabanno waxaa laga maarmaan noqotay in aynu shirkan wadatashigaa isugu nimaadno si aynu fikirkeenna iyo maskaxdeenna aynu isugu geyno oo aynu uga tashanno sidii bal deegaanka ilaahay inagu abuuray aynu u badbaadin lahayn dhibaatooyinka aynu gacmaheennu sababayaan aynu uga badbaadin lahayn waxaan halkan laydinku soo jeedin doonaa runtii presentationno khudbado iyo wacdi diin iyo jazaaka allah sheekhi halkan doctor xasan inoo jeediyey iyo suugaan kala duwan oo diiradda lagu saarayo dhibaatooyinka deegaanka ka jira ujeedooyinka kale ee ugu waaweyn aynu shirkan u qabannay waxaa ka mid ah markii wasaaradda deegaanku maadaama oo shaqada ballaaran ee deegaanka lagu badbaadinayo ay gacanta ku hayso culayska ugu badanna uu ku dhaco annagoo uga mahadnaqayna dhammaan barasaabada gobollada taliyaha guud ee booliska wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliyayaasha qaybeedada gobollada iyo runtii maxkamadaha iyo xeelaalintoo mar kasta nagu garab taagan sidii aynu u ilaalin lahayn u badbaadin lahayn deegaankeenna si bal aynu isu weydaarsano fikirkeenna intayna halkan ay isugu timina aynu bal u qaadano fikir iyo maxaa la yidhaha faham guud oo isku mid aynu uga qaadano bal aafada iyo dhibaatada deegaanka lagu haye jirta inay tahay dhab inteennana in mas-uuliyaddii qaranka aynu u egmanahay ayna saaran tahay ee lagu badbaadin lahaa deegaanka marka si aynu si wada jira fahamkaa isula qaadano oo wacyigelinta dhexdeenna uga bilaawno kadibna aynu bulshada u gaadhno wada shaqaynta qodobka wada shaqaynta runtii aad u muhiima inaynu wada shaqayno intayna halkan isugu nimi haddaynu nahay heer qaran iyo haddaynu nahay heer gobol kasta inuu wada shaqeeyo oo marka barasaabka iyo taliyaha booliska degmada iyo wasaaradda iskaashanaya ay cid deegaanka dhibaataynaysa soo qabtaan keligood shaqada ma dhammaystiri karaan haddii aanay la shaqayn maxkamaddii iyo xeer ilaalintii waxaynu u baahannaha oo kale inaynu fahamno oo halkan aynu dhammaantiin laydiin qaybiyey xeerarka iyo shuruucda waddanka u yaalla ee deegaanka lagu ilaalinayo presentations kalena waa laydin soo jeedin doonaa oo ku saabsan shuruucda aynu haysanno iyo shuruucda deegaanka lagu ilaaliyo dunidu isla garatay marka runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan ee aad wakhtigiinna qaaliga ugu soo hurteen qarankiina ugu soo hurteen deegaankiina ugu soo gurmateen deegaankiina waxaan rajaynayaa shirkan markuu inoo dhammaado inay inooga soo bixi doonaan qodobo iyo maxay tahay tallaabooyin wax ku ool ah oo aynu deegaanka wax kaga qaban doono aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idin soo dhaweynayaa waan idin mahadnaqayaa mar labaad waxaan idinka rajaynayaa labadaa casho aynu halkan wada joogno inaad muujin doontaan sabir iyo dhabar adayg iyo wadaninimo iyo dulqaad si aynu wax ku oola oo bulshadeenna iyo qarankeenna iyo deegaankeenna wax tarta aynu halkan uga soo saarno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh